Waxaa jirtay gabadh la yiraahdo Meel waxay ka soo baxaysaa qabriga iyadoo gurguranaysa markaas baa nin qarsoodiya oo gacanta ku haya faas weyn oo dhagaxa lagu jaro ka soo muuqda. Meel way baqday waxayna bilowday inay ninkaas baryo u gasho oo ay ku tiraahdo fadlan idaa, balse ninkii wuu dili doonaa weliba si naxariis la'aan ah. Kadibna sheekadu waxay u guurtaa waqtiga hadda la joogo. Waxaa la arkayaa 5 saaxiibo oo baabuur ku socdaalaya. Safar ayay galeen, mid ka mid ah waa Clover, waa Meel walaasheeda. Sababta u socdaana waa inay raadiyaan Meel meeshii ugu dambeysay ee lagu arkay. Markii ay yimaadeen dukaankii ugu dambeysay ee Meel lagu arkay, waxay helaan muuqaal ay Meel u dirtay walaasheed Clover. Muuqaalkii waxay ku oranaysay walaal aad baan kuu xiisay, gaar ahaan hooyaden oo dhimatay. Waan ka xumahay xaaladda, waxaan rabaa inaan ka tago guriga. Markaas bay sheekadu bilaabmaysaa inay noqoto mid cabsi leh. Markaasay Clover rabtaa inay ka bogsato geeridii hooyadood, waana sababtay u timid meeshaas. Mid ka mid ah gabdhaha safarka la joogta oo la yiraahdo Megan waxay leedahay awood gaar ah oo maskaxda la xiriirta sida qof wax dareema ama saadaalin kara. Markaasay ku dhahdaa dhammaan saaxiibadeed gacmaha isqabsada si aan ugu xirno tamarta halkan ka hartay. Markay gacmaha isqabsadaan waxay dareemaan wax xoogaa xog ah ama fariin ah oo soo baxayso, balse si lama filaan ah baabuur weyn oo hoon dheer leh uga carqaladeeya. Markaas baa Clover gudaha u gashaa dukaanka si ay baaritaan u sii samayso. Wiil la yiraahdo Max wuxuu isleeyahay aan la galno, balse saaxiibtood Neha ayaa ku dhahda maya, sii waqti yar oo ay kaligeed wax ku eegto. Waxaa la ogaaday in Clover iyo Max oo ay hore isu jeclaayeen balse way kala tageen. Markaasaa Clover waxay u tagtaa ninkii dukaanka joogay kaashiyerkii, waxayna tusaysaa sawirka walaasheed Meel si uu u fiiriyo oo u sheego haddii uu arki jiray ama garanaya. Markaasaa Clover weydiisaa ninkii dukaanka joogay ma aragtay gabadhan. Ninkii wuxuu u sheegaa in gabadhaasi ila la'yahay way luntay. Intaas kuma ekaanay wuxuu sii raacayaa hadal kale oo cabsi leh. Wuxuuna leeyahay Clover, adigu ma tihid qofkii ugu horeeyay halkan yimaada isagoo qof raadinaya. Markaasuu farta ku fiiqaa Meel la yiraahdo Glory Valley, wuxuuna yiraahdaa dadkii u sii gudbay magaaladaas mar dambe dib looma arkin. Meeshaas dad badan baa dhibaatooyin kala kulmaan. Haddii aad meeshaas u sii socotaan waa inaad taxadartaan. Intaas kadib banaanka dukaanka waxaa hadal bilaaba Abe oo ah wiilka Neha ee wada socdaan. Wuxuu weydiiyaa kooxdii, anigu waxaan moodayay safarkan inuu yahay raadraaci Meel, inaan helno meelihii ay tagtay markii ugu dambeysay, maxaa iska bedelay. Laakiin markaas baa la ogaadaa in ujeedada dhabta ee Clover aysan ahayn keliya raadinta walaasheed Meel, ee ahayd dhab ahaantii inay rabto inay kooxda u sii gasho gudaha magaaladaas Glory Valley, inkastoo oo ay dad badan ku halaagsameen halkaas. Markaasaa ninkii dukaanka lahaa u sii sheegay Clover, arrimaha sidan oo kale mar walba waxay ku dhammaadaan dhib. Dad ayaa dhibaato galay intay qof raadinayeen. Wuxuu si cad uga digaa waxa dhici kara. Daqiiqado yar kadib Clover dib bay ugu soo noqotaa kooxdii, waxayna u sheegtaa waxaan ogahay meeshii walaashii Meel ay ku dambeysay halka laga waayay. Markaasay kooxdii ku wada baxaan baabuur ayaga oo roob iyo dabeelo xoogan dhex maraya. Waxay galeen kaymo mugdi ah oo cabsi leh, meelahaasoo aan la hubin, laakiin waxay bilaabeen inay wareegayaan isla Meel sidii iyagoo mar waliba isla halkaas ku soo noqda. Neha waxay dhahaysaa waxaan u maleynayaa inaad dib u laabano, wax saxsan ma soo socdaan. Laakiin Abe wuu diidaa, wuxuuna ku adkaystaa inay sii wadaan. Intay murmayaan si lama filaan ah bay isku arkaan beero furan oo cirka cad yahay, laakiin daruur madow oo cabsi leh ayaa meel kore ka samaysantay. Waxayna arkaan guri ku yaala geeska meel mugdi ah. Kadib markay iska fiiriyaan deegaanka, sheekadu waxay sii galaysaa xaalad cabsi badan. Markaasay kooxda go'aansataa inay gudaha u galaan guriga si ay u baaraan waxa ku jira. Laakiin Clover waxay go'aansataa inay dibadda iska joogto oo ay sii fiiriso deegaanka ku hareeraysan. Waxaa si gaar ah uga yaabisay sida cimilada isku beddeshay labada dhinac, hal dhinac daruur madow iyo roob, dhankeeda kalena waa cir cad iyo qaleel. Max isagana wuxuu go'aansaday inuu la joogo Clover oo uu sugay intay kooxda kale guriga eegayaan. Dhanka kale Abe, Neha iyo Megan waxay bilaabaan inay gudaha u galaan guriga. Waxay halkaas ka helaan alaab hore sida alaabooyin la isticmaali jiray 1990yadii. Mid ka mid ahna wuxuu ahaa saacad ciid ah oo derbiga ku xiran. Markay sii fiirinayaan, Neha waxay aragtaa buug diiwaangelin ah oo saaran miis. Waxay buugga ku qortaa magaceeda si ay u sheegto inay halkan timid. Laakiin markay ay buugga dambe u rogto si ay u aragto waxa kale, waxay aragtaa magacyo dad kale oo hore ugu qornaa buugga. Markaasay Neha sii fiirisaa buugga diiwaanka. Markay Neha sii fiirisa buugga diiwaanka, si lama filaan ah bay u aragtaa magacii walaasheed Meel. Way la yaabtaa oo way la argagaxdaa. Taasi macnaheedu waxay tahay in Meel ay hore u timid gurigan. Markay eegto qoraalkii Meel ee buugga ku qoran, waxay arkaysaa in qoraalka bilowgii caadi yahay, balse ereyada ugu dambeeya waxay u egyihiin isku dhaxyaa iyo sawir gacan sida qof maskax ahaan isbedelay. Dhanka kale Abe wuxuu ka yaabay guriga, wuxuuna teleefankiisa ka bilaabaa duubis. Wuxuu galaa qol kale oo guriga ka mid ah, halkaas uu ku arkay boor weyn oo derbiga ku dhegan. Boorkaas waxaa ku suran wejiyo dad la waayay sanadihii la soo dhaafay, waxaana ku jiraan dad badan. Waxaa halkaas ku dhegan boorkii gabadhii la waayay Meel. Isla waqtigaas
banaanka Clover waxay aragtaa muuqaal u eg gabadhii la waayay. Waa qof si buuxa ugu eg yahay walaasheed Mel, waxayna si degdeg ah u aadaa dhankaas si ay u ogaato haddii ay dhab ahaan tahay Mel. Markaas habeenkii bilaabmaya, daruuraha madowna cirka buux dhaafiyeen. Clover waxay u sii ordaa dhankaas si ay ula kulanto qofkii ay u maleynaysay inuu walaasheed Mel yahay, laakiin Max ayaa gaaraya wuxuuna si xoogan dib ugu soo jiidaa Clover si uu uga celiyo halistaas. Markii ay kooxdii dhammaantood dib isugu yimaadaan, waxay isku dayaan inay fahmaan waxa ka dhacaya gurigan yaabka leh. Nia ayaa si lama filaan ah u aragta saacadii ciidda oo si keligeed isku rogtay oo hadda ciidda hoos uga daadanayso sidii wax la kiciyey. Waxay markaas maqlaan darbaal iyo garaac xoog leh oo ka imaanaya banaanka guriga. Markay baxaan si ay u eegaan waxa dhacay, waxay la yaabaan baabuurkoodii. Baabuurkii meeshii hore ee ugu xireen wuu ka maqan yahay, waxaana lagu arkay dhinaca roobka iyo daruurta madow ee dhulkaas. Arrintaas waxay ka dhigtaa kooxdii mid cabsi la dhacday. Sidaa wax caadi ah ma ahan. Waxay isla fahmaan in xaaladda aad u xun tahay, markaasay si degdeg ah ugu soo cararaan gudaha guriga. Waa ay naxeen waayo taleefanadooda signal ma hayaan, mana awoodaan inay cid la xiriiraan. Clover waxay soo jeedishaa in la raadiyo qaab ay dibadda ula xiriiraan ama gargaar u helaan. Nia iyo Abe waxay go'aansadaan inay iska joogaan daaqadda si ay ula socdaan ninka yaabka leh ee baabuurkooda ku mashquulsan. Dhanka kale, Max iyo Clover iyo Megan waxay sii socdaan oo heleen jardiin hoos ku yaal, laakiin korontada guriga ma aha mid joogto ah. Nalalkii mar way daarmayaan marna way damayaan. Sidaas darteed Megan waxay isticmaashaa taleefankeeda si ay iftiin uga raadiso. Clover waxay si farxad leh u heshay taleefankii guriga, laakiin markay isku dayday inay isticmaasho ma shaqaynayo. Megan markaas waxay aragtaa raadiyo gaboobay oo noocii hore ah. Waxay isku daydaa inay kiciso si ay wax uga maqasho, laakiin markay shid waxbaa ka soo yeedhaya. Waxaa ka soo baxaya dhawaaqyo cajiib ah, codad qiiro leh iyo qax aan la fahmi karin. Dhanka kale, Nia iyo Abe weli waxay istaagaan agaarka daaqadda. Markaasay maqlaan dhawaq toogan oo ka yeera mid ka mid ah qolalka guriga. Abe wuxuu go'aansadaa inuu hubiyo waxa dhacay, wuxuuna keligiis tagaa qolkii dhawaaqa laga maqlay. Daqiiqada kadib, Abe weli ma soo noqon, wax war ahna lagama hayo. Nia way naxdaa, waxayna go'aansataa inay raacdo si ay u eegto waxa ku dhacay. Markay gasho qolka, waa mugdi madow. Si tartiib ah bay gacanta uga shidaa nalka guriga. Markaas bay la kulantaa argagax aan la qiyaasi karin. Halkaas waxaa yaala jirkii Abe oo si naxariis daran loo jarjaray, si toos ah lama kala go'ay. Waxay ku qaylisaa cabsi iyo murugo. Qayladeen waxaa maqla kooxdii kale. Max wuu ordaa si uu u ogaado waxa dhacay. Markuu gaaro qolka, wuxuu arkaa muuqaal murugo leh. Nina oo miir beeshay iyo Abe meydkiisii oo bar yaalo. Wuxuu sidoo kale arkaa muuqaalka yaabka ee qofka wax dilaya, muuqaal xun oo cabsi leh. Markuu Max arkay waxa dhacay, wuxuu si dhaqso leh ugu cararay kooxda kale si uu uga digo. Wuxuuna ku yiri isqariya degdeg. Markay dhammaan isqariyeen, muuqaalka cabsida leh ee qofka wax dilaya wuxuu soo dhex maraa meesha ay ku dhuumanayaan. Laakiin Max wuxuu arkaa fursad uu ku weeraro. Wuxuu soo qabtaa kursi, si tartiib ah ayuu isu dhawaadaa. Markaas buu dhabarka ka garaacaa, laakiin wax saameyn ah ma leh. Markuu arkay inuusan waxyeelo gaarin, kala jabshaa kursigii. Wuxuu rabaa inuu ku mudmudo qoryihii kursiga ahaa, laakiin ninkii ayaa gacantiisa soo qabtay qoryihii, wuxuuna kaga muday indhihiisa. Max wuu dhacay, wuxuuna ku dhintay isla goobtii. Markaas kadib, muuqaalka argagaxa leh wuxuu helaa Megan oo isqarisay gudaha armaajo. Si xun ayuu u soo jiidayaa, wuxuuna madaxeeda ku garaacayaa sagxadda dhulka marar badan. Laakiin waqtigaas Clover oo ahayd tii isqarinaysay way soo baxdaa si geesinimo leh. Waxay madax madoobihii wejiga kaga mudaysaa mindi si xanuun badan. Clover markii ay mindida ku dhufatay ninkii madaxa daboolnaa, wax saameyn ah kuma yeelan. Markaasay garatay inaysan waxba ka qaban karin, waxayna bilowday inay orodo. Gurigii way ka baxdaa, waxayna gashaa keenta. Laakiin markii ay gudaha keenta gaarto, waxay la kulantaa qof kale oo u eg walaasheeda Mel, isla wejigii isla labiskii. Markaasay soo jeesataa. Kadib markii waxaa ka faa'iidaystay ninkii, wuxuu gadaal kaga mudaa shay af daran, si toos ah ayuu u dhex mariyaa, taasoo sababta inay Clover isla goobtii ku dhimato. Intaas kadib, saacadii ciidda ee derbiga ku dhegneyd waxay dhammaynaysaa tirinteeda. waxaana muuqata in wax walba dib loo bilaabayo sidii markii loo daaway sheekadii laga sheekeynay. Dhammaan dadka ku lug lahaa dhacdada waxay dib ugu laabtaan xilligii ay ku bilaabatay sheekada, laakiin markaan wejigooda iyo jirkooda waxaa ka muuqda dhaawacyadii iyo nabaradii ay hore u gaareen. Markii ay dhammaan dadkii dhaawacmay ama la dilay dib u noolaadaan, waxay xasuustaan wixii ku dhacay markii ay guriga ku jireen. Meel u dhow boorka sawirada dadka maqan, waxay arkaan in sawiradooda ay hadda ku jiraan boor cusub. Waa sawirada dadka
codka cusub ee maqan, Megan oo leh awood maskaxeed oo gaar ah ayaa bilowday inay dareento tamarta xoogan ee xoogga madow ee kor u kacaysa. Waxay kooxda u sheegtaa, waxaan dareemayaa in xoogga madow uu sii xoogsanayo. Abe wuxuu u maleynayaa inay tahay inay ka baxaan gurigan, la rumaysan yahay inuu dayaxa leeyahay oo ay ka cararaan meeshan. Laakiin Neha waxay diidaysaa fikraddaas kabixitaanka, waxayna dhahaysaa ma tagi karno, ninka wejiga daboolan weli wuu joogaa, wuuna na raadinayaa. Neha waxay kooxda u sheegtaa wax cabsi leh oo ay maskaxdeeda ku xasuusatay, dhammaantiina waa la idin dilay keliya 10 daqiiqo ka hor. Magaceega ayaa 2 jeer ku qoran buugga diiwaanka sida magacii Mel. Taasi macnaheedu waa in haweenkan uu maraya marar badan isla dhacdadan ee is-celiso. Markaas iftiin guriga bilaabo inuu dilaaco oo kor iyo hoos u dhaco, kadibna waxay maqlaan cod xoog leh oo albaabka si weyn loo ruxruxayo. Markii ay albaabka baaraan, qof ma jiro, laakiin albaabkii iskiis ayuu u furmaa oo u xirmaa marar badan. Abe ayaa albaabka haysta, Maxna wuxuu isticmaalayaa shay uu ku xiro gacanta albaabka si uusan u furmin. Kadib daqiiqado yar waxaa la maqlayaa codkii Mel oo kalinaysa icaawi icaawi. Markii codkii Mel ee maqashay Clever, aad ayay u damqatay, waxayna rabtay inay walaasheed badbaadiso, laakiin kooxda ayaa u sheegtay inay suurtagal tahay inay tani tahay balaayo ama khiyaano. Inkasta oo ay kooxdu ka digtay, Clever waxay go'aansatay inay banaanka u baxdo si ay walaasheed u raadsato. Markii banaanka timid, walaasheed Mel waa ay waayday. Meeshaasna waxaa hortaagan dhismo qarsoodi ah oo cusub oo hortaagan meesha ay joogaan. Sikadiisa xoogan ayaa Clever jiidaya dhismaha cusub, halka kooxda kalena xoog u riixayo gudaha dhismaha hore. Albaabka ayaa si adag u xirmay hortooda. Max oo ah nin hore u xiriir kala dhexeeyay Clever ayaa doonayay inuu baxo oo badbaadiyo, laakiin Abe ayaa hor istaaga. Abe wuxuu Max u sheegay in uu banaanka u baxo ee tahay halis weyn, maxaa yeelay wuxuu la kulmi doonaa xaalad la mid ah tan Clever. Abe wuxuu ku dhahaa Max inuu isku dayo inuu u dhawaado Clever si uu xiriirkooda dib ugu soo celiyo. Taasina waxay ka xanaajisaa Max iyo Neha oo ka careysiisa hadalkaas. Markii Clever ay gudaha guriga mugdiga ku dhacday, waxay aragtay maaskaro oo cabsi leh oo ku xeeran meel geeska guriga ahna waxaa ka muuqda haweeney duq ah oo neefsashada ka caawisa mashiin ambulatory ah. Waxay dhageysanaysaa warbixin warbaahineed oo ka hadlaysa musiibada ka dhacday magaaladaas. Clever waxay isku dayday inay ka baxdo guriga, laakiin albaabka wuu xiran yahay. haweeneydii duqda ayaa u soo dhawaata. Cleverna waxay baryaysaa inay siiso fursad ay ku baxdo. haweeneyda ayaa ku jawaabtay, habka keliya aad uga badbaadi karto waa inaad haweenka sii noolaato, haddii kalena waxaad noqon doontaa qayb ka mid ah guriga. Markaas haweeneydii waxay isku daydaa inay Clever ku dhufato maas si ay neefsigeeda u xadido. Cleverna waxay noqonaysaa mid la hantiyey, iyadoo haweeneyda duqda si tartiib ah u burburayso. Dhanka kale, Abe iyo Neha waxay gaareen gaarigooda diyaar u ah inay ka baxaan magaalada, laakiin wadadooda waxaa xiraya makhluuq weyn oo cabsi badan. Iyadoo aan doorasho lahayn, Abe wuxuu ku noqdaa gadaal, iyadoo isku daygooda ka bixista magaalada uu fashilmay. Markii ay doonayeen inay ka baxaan, albaabka gaariga ayaa u muuqday inuu si adag u xiran yahay oo wax aan albaab kale oo furitaan ah jirin. Markaasaa qof maaskooda xiran kasoo muuqday hortooda si uu u dilo Abe iyo Neha. Max ayaa ku guuleystay inuu gudaha gurigaas mugdiga galo, halkaasoo ku arkay alaabo caruureed oo kala duwan iyo kursi oo iskiis u dhaqdhaqaaqayo. Markii uu hubiyey in dabeesha sababtay dhaqdhaqaaqaas wuu wareegay, laakiin si lama filaan ah ayaa Clever oo hadda xiran maaskaro si naxdin leh qoorta uga jartay. Markii Clever ee banaanka u baxday, waxaa gaariga ku dhuftay nin kale oo maaskaro xiran oo saaran gaariga Abe. Markaas ayaa waqtiga mar kale bilaabmaya. Dhammaantood waxay kusoo laabteen waqtigii muhiimka ahaa ee sheekadu ka bilaabatay. Farqiga keliya ayaa ah in haanta biyaha ee meesha taalo, taasoo aan hore u jirin. Markay ogaadeen qaladka ay hore u galeen oo sababay dhimashadooda hore, kooxdu waxay xiraan dhammaan albaabada. Waxay kusoo dhuntaan musqusha. Abe oo haraad qaba ayaa qaata koob biyo ah kana cabaya tuubada biyaha, wuxuuna weydiiyey qofkii doonayay inuu caawo. Dhammaantood waxay kor u qaadaan gacmaha. Clever ayaa la wadaagtay waxay haweeneydii duqda ahayd u sheegtay, waxayna tiri waa in ay haweenka noolaadaan si ay uga badbaadaan. Markaas Max ayaa soo jeediyey in wax walba ay ku xiran yihiin inay haweenkii noolaadaan ilaa waa beriga. Haddii aysan ku guuleysan, waxaa laga yaabaa inay halkan ku xirnaadaan weligood, iyaga oo qayb ka waxyaabaha cabsigelinaya haweenkii. Abe ayaa bilaabay inuu si daran u qufaco. Kooxda ayaa isku dayaysa inay qorshe ka sameeyaan sidii ay uga badbaadi lahayn xaaladda. Waxaan arkaynaa Abe oo isku dayay inuu dhiiggiisa ku qariyo daahyada, laakiin xaaladda waxay noqotay mid madow ah. Markii Abe si xakameyn la'aan u qufacay, dhiiggiisuna uu ku daatay afka Neha ayaa isku dayday inay dhaqdo, laakiin Megan ayaa joojisay, waxayna ku tiri biyaha ayaa sababay dhibaatada. Markaas ayaa Neha sidoo kale si lama filaan ah u qarxaday. Kooxdu waxay si degdeg ah uga baxsadeen musqusha una dhaqaaqeen qolka fadhiga. Megan ayaa bilowday inay qufacdo sida kuwa kale, waxayna la kulantay dhimasho la mid ah. Clever ayaa Max ka codsatay inay rabin inay la kulanto isla xaaladaas oo kale, waxayna ku bariday inay isdilaan si ay mar kale u soo noqdaan una qorsheeyaan sidii ay uga badbaadi lahaayeen
Megan maadaama buugga diiwaanka uu muujinayo dad badan oo magacyadooda ku soo noqnoqday taasoo macnaheedu tahay inay soo noqdeen. Max ma awoodin inuu ziro wuxuuna ku qarxay Clover horteeda. Nin ayaa qolka soo galay wuxuuna noqday ninka ka shaqeeya dukaanka ee hore uga muuqday sheekada. Ninku wuxuu u sheegay Clover inay ku dhawaad guulaysatay laakiin aysan noolaan karin haddii ay fadhiisato. Madaxeedii ayaa isla markiiba qarxay. Markii qof walba dhintay oo tiriyaa waqtiga dhammaaday wax walba mar kale way bilaabmeen. Megan ayaa ogaatay inay ilka dheeriya u soo baxayaan. Clover ayaa sheegtay in sugitaanka tiriyaa waqtiga hoos u dhaca aysan shaqaynaynin. Sidaas darteed waxay bilaabeen inay wax ka baaran agagaarka si ay u helaan wax caawin kara qorshahooda. Clover waxay yeeshay aqoonsiyo kala duwan oo milkiilaha dukaanka oo loo yaqaan Dr. Hill oo hore u ahaan jiray madax cilmi nafsiyeed oo magaalada ka shaqayn jiray. Abe ayaa helay warqad wargeysyo oo ka hadlaysa masiibo macdan qodid oo ka dhacday Glory Valley 20 sano ka hor. Warbixintu waxay sheegaysaa in masiibadaas ay sababtay macdan qodayaal si qoto dheer u qoday dhulka taasoo sababtay dhimasho in ka badan 1000 qof. Dr. Hill oo ah khabiir ku takhasusay dhaawacyada nafsiga ayaa loo keenay si uu u caawiyo dadka magaalada ee badbaaday si ay uga gudbaan dhibaatadaas. Cilmi nafsiga dhaawaca ayaa muujinaya in magaalada lagu aasay masiibada. Neha ayaa aragtay albaab waxayna u malaynaysaa in laga yaabo uu yahay waddo laga baxo laakiin markii ay albaabka furto waxay aragtaa dariiq aad u cabsi badan oo ay go'aansadaan inay waddo kale raadiyaan. Megan waxay qabtaa in qof kastoo ka dambeeya wax ay la kulmayaan uu doonayo inuu cabsi geliyo. Max ayaa la canjaad markii uu daawaday waxay arkeen in nin ku jiro sheebaar oo baryaya in la sii daayo. Dhakhtarka kormeerka tijaabada ayaa sharxaya in bukaanka muujinayo calaamadaha baahida iyo murqaha oo daciifa laakiin waxa ugu muhiimsan waa cabsida aad u daran iyo walwal. Waxaa kaloo lagu daray in dhaawaca nafsiga ee masiibada macdanta ay weli saameynayso dadka badbaaday iyo booqdayaasha. Markii ay ku xirnaadaan muddo dheer waxay noqdaan kuwa rajabeyla kuwaasoo isu bedela baxal loo yaqaan Wendigo. Saadiyaha qolka ayaa hadda bilaabaya inuu shaqeeyo waxaana Dr. Hill u sheegaa inay jirto waddo laga baxo laakiin qiimo ayaa la doonaya. Midkood waa inuu u dhintaa sida kuwa kale u badbaadaan si kuwa kale uga baxaan Glory Valley. Clover way diiday inay dhintaan saaxiibadeed iyadoo go'aan ku gaartay inay waddo kala raadsato. Waxay heshay qariirada magaalada waxayna tilmaamtay meesha uu dhakhtarku qarinayo. Clover waxay u sheegtay Hill inay rabto inay si foolka foola ee ula kulanto. Hillna wuu ogolaaday laakiin wuxuu u sheegay inay Clover kaligeed u timaado. Abe waxa uu maleeyay inay tahay fikrad wanaagsan maadaama ay haystaan 4 habeen oo kaliya. Dhammaan saxiixyada kale ee buugga maqan waxay ku guuldareysteen inay ka gudbaan 13 saxiix. Sidaas darteed waa inay qaataan fursadan. Clover waxay ogolaataa inay la kulanto Hill oo uu u sheegay inuu ku sugan yahay keenta isagoo la joogta walaasheed. Markii ay tani maqasho Clover waa mid aad u go'aan leh inay hesho dhakhtarka. Kuwa kalena waxay isku dayaan inay joojiyaan inay baxdo marka laga reebo Abe. Abe wuxuu xasuusanayaa inaysan sii wadi karin inay marar badan u dhintaan sidan. Haddii la kulanka dhakhtarka uu joojin karo wareegaas waa in la isku dayaa. Intaas waxaa dheer Clover waxay isku dayday inay isdisho 2 jeer sanadkan iyadoo ay sheekadu socoto. Neha ayaa ku dhufatay Abe mindi aad u weyn ciqaab ahaan markii uu ku qanciyay Clover inay tagto raadinta walaasheed ee keenta. Waxay u sheegtay Megan iyo Max inay raadiyaan Clover. Clover oo dhex socota keenta ayaa markiiba waxay ku dhacaysaa shabaq qabasho leh. Waxay isku daydaa inay iska furto balse waxaa loo jiidaa hooska mugdiga hortiisa. Dhanka kale Megan iyo Max waxay hore ugu jiraan keenta iyagoo wata toosh oo raadinaya Clover. Kadib ayagoo socda ayaa wax ku soo dhaca shaarka Megan. Markii ay kor u fiiriyaan way argagaxaan markii ay arkaan Wendigo makhluuqa naxdinta leh. Waxay bilaabaan inay ordaan iyaga oo ku wajahan guriga. Nasiib daro Megan ayaa ku dhacda dhalo hoosteedana waxaa ku qorsan guri qodan oo dhulka hoostiisa yaal. Markii ay dhaqaaqdo dhaladu waa ay sii jabaysaa. Max ayaa qabta Megan si uu ugu caawiyo inay istaagto balse Wendigo ayaa ku booda Megan iyaga oo wada ay hoos ugu dhacdaa guriga hoostiisa. Wendigo waxa uu u jiidaa jirka Megan hooska mugdiga. Max waxa uu helaa Clover oo weli nool laakiin meel ku xiran. Kadib waxaa arkaynaa meel oo soo muuqatay ayadoo ah Wendigo ka hor inta aysan soo weerarin. Max si degdeg ah ayuu u qabsadaa dawin jirka ah si uu ugu isticmaalo wejiga meel. Tani waxay siinaysaa waqti ku filan si ay ugu cararaan iskuna qariyaan gudaha keenta. Clover waxay u ballan qaadaysaa Max inay mar kale isku dayi doonaan sidii ay wax u hagaajin lahaayeen. Max si aan qasab ahayn ayuu ku raacsan yahay kadibna waxa uu qoorta ka jaraya Clover. Markaas Max oo kaliis ah ayaa cabaya dhibco biyo ah wuuna qaraxayaa meel horteeda. Markii Clover soo toosto waxay la kulantaa wareegga cusub oo waqtiga dib u soo celinayo. Abe waxa uu bilaabaa inuu dareemo wax ku socdo dhabarkiisa. Marka uu tuso dadka kale waxay arkaan inuu isbedel yahay. Si loo dejiyo dadka kale waxay ku yiraahdaan waa wax caadi ah. Clover waxay weydiisaa inta ay joogeen. Max ayaa qiyaasa inay tahay 4 habeen balse Neha ayaa xaqiijisay inay tahay 13 habeen. Neha waxay ku amraysaa Clover inay hubiso buugga diiwaanka sababtoo qof ma dhaafi karo 13 habeen. Kooxda waa inay isku daydaa inay habeenkan ka badbaadaan
si ay uga baxaan magaalada ayagoo nool. Markii Clover daaqada furto waxay arkaan guryo aad u murugo badan oo aan hore u jirin. Waxay ogaadaan inaysan xasuusan waxa dhacay habeenkii hore iyo kii ka dambeeyay. Meel ayaa u muuqata mid maqan, qofna ma xasuusto wax, laakiin marka laga reebo Abe oo xasuusan inuu duubay muuqaal telefoonkiisa muddo dheer. Abe ayaa kooxdiisa u shiday qaar ka mid ah muuqaaladaas. Muuqaalka waxaa ku jira sawir cidiyaha oo ka dhaqaaqaya wejiga Clover. Wejiga Clover ayaa isbedelay markiiba, wejigeeduna wuxuu noqday mid bahal ah. Qaar ka mid ah duubista kale waxay muujinayaan sida dhammaantood ay u dhinteen. Duubista ugu dambeysay waatan Megan oo go'aansatay inay raacdo Dr. Hill si ay u ogaato waxa uu qarinayo iyo in laga yaabo inay hesho jid ay uga baxaan meesha. Waxaa dibadda ka maqlayaan dhawaaq qaylo ah. Markii ay daaqada fiiriyaan waxay arkayaan koox Windios ah oo wadada dhismahooda maraya. Kooxdu waxay go'aansataa inay qaataan hub oo ay raadiyaan Megan, taas oo macnaheedu tahay inay mari doonaan albaabkii hore uga batayeen inay galaan. Markii ay galeen wadadu waxay noqotaa tunnel oo u horseedaysa tuulada kale. Kooxdu waxa ay gashaa mid ka mid ah dhismayaasha waxayna arkaan Windigo. Kooxda ayaa joojisa dhaqaaqooda waxayna sugayaan ilaa uu ka tago. Nasiib daro mid ka mid ah Windigo ayaa helaya kooxda. Markaas Clover ayaa lugtiisa ku xiraysa baas aad weyn. Hadda kooxda waxay ku ordaan badbaado gudaha qol. Markaas ayaa shakhsiga wejiga daboolan si xoogan uga soo baxa gudaha. Shakhsiga wejiga daboolan ayaa ka soo booday saqafka wuxuuna isku dayaa inuu weeraro Clover. Maxi waxa uu sheegayaa inuu aaday inuu raadiyo Megan isaga oo iska mashquulinaya Windigo. Maxi ayaa weerar ku qaaday Windigo iyaga oo si wadajir ah. Maxi waxa uu madaxa kaga garaacaa bir weyn oo xoog leh. Dhanka kale Clover waxaa soo weerara Mel, laakiin hadda waxay aqbashay xaqiiqada nolosha waxayna Mel ku riixdaa bir dhulka taal oo aad weyn taasoo isla markiiba disho Mel. Clover waxay heshaa Megan oo ku xiran sheebad iyadoo ku xiran Windigo hortiisa. Clover waxay u dhaqaaqdaa qolka kale si ay u hesho furaha albaabka, laakiin Dr. Hill ayaa markiiba albaabka ay ka bixaysa ku xiray. Dr. Hill wuxuu u sheegay Clover inay tahay bukaan xiiso leh maadaama ay qabto murugo daran, walwal xad dhaaf ah iyo laba isku day oo isdilid oo fashilmay. Wuxuu u sharxayaa in bahalada ay kula kulantay dooxadan ay yihiin muuqaalo ka turjumaya cabsiyaheeda intii uu la hadlayay, taasoo siisay fursad. Clover waxa ay gees u riixaysaa koobkiisa qaxwada si ay biyaha daadanaya ugu dhibcaan. Abe, Neha iyo Max waxaa daba socda koox Windigos oo badan. Megan ayaa argagaxsan maadaama Windigos oo horteeda ku xiran uu doonayay inuu ka baxsado silsilada kadib markii uu cabo qaxwada. Dr. Hill wuxuu dhowr ilbiriqsi kadib bilaabaya inuu xanuun dareemo isagoo garanaya wixii dhacay. Wuxuuna isku dayaa inuu weeraro Clover, laakiin iyada si xoogan ayay u riixdaa wuuna qarxayaa. Clover waxay awoodaa inay hesho furaha waxayna saacadihii ugu dambeeyay ka badbaadisaa Megan kahor inta uusan Windigaha soo baxsan. Arrintu weli ma dhammaan. Windigo kale ayaa hadda daba socda iyada oo waqtigii ku dhowaad dhammaanayo. Labadan waxay helaan meel ay ka baxsadaan. Max iyo kooxdii kale ayaa waqti u heleen iyagoo ka soo jiida godka. Markii waqtigu dhammaado ma bilaabmin sidii hore. Cirka ayaa u muuqda sidii caadiga ahaa. Roobkii aan dhammaadka lahayn ayaa ugu dambeyntii istaagay. Abe ayaa hore u koray gaarigiisa wuxuuna u sheegayaa kooxda inay fuulaan si ay meesha uga baxaan isla markiiba.